السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawow channelkeena haddaad ku cusub tahay fadlan waxaan ku leenahay subscribe noo saar haddaad hore nala joogtiin waxaan ku leenahay soo dhawow maanta waxaan kuu soo gudbin doonaa muuqaal yar iska xasaasi ah muuqaalkaanita wuxuu quseeyaa sida tan soo socdo maxay tahay cilbida xoojisada waxaan kalan doonaa cilbida loo yaqaano xoojisada taasoo isticmaalaan ragga maxay tahay cilbida xoojisadu waxaa jiro dad badan oo ka cabto jileec ama tabaryari xubintooda taranka ah taasi oo ku keenta xaalad walaac badan iyo isku qanacsanaan la'aan dhanka lamaanaha waa maxay Believers Shot waa cilbad loo diyaariyay si farsameysan taasi oo laga soo dhalandhiliyay hormooniska koritaanka jirka aadanaha taasi oo ay ka buuxaan xinjirayaal dhiig iyo dheecaan plasma oo mid dhiig laga farsameeyay ah cilbada ayaa lagu dili doonaa qaybta dhexe loo yaqaan Carbora cavernosa oo ah qaybta awoodda u leh in taagmato xubinta taranka ragga xilliga galmada waana xubinta kaydisa dhiigga soo galo tiftaafyada yar ee xubinta xilliga shaqada si loo sii joogteeyo taagnaanshaha xubinta cilbadani ayaa u beeri doonta nudayaal cusub oo dabiici ah kuwaasi oo awood u yeelan doona in wax badan iska bedelaan awoodda xubintaada haddaba yaa u baahan cilbadan oo kale qof rabo inuu kordhiyo awoodiisa galmada 2 qof qalliin lagu sameeyay xubinta taranka 3 qof ku daalay adeegsiga kaniiniyaasha xoojiyaasha 4 qof qabo sokor ama dhiig karka 5 qof heerka dufanta jirkiisa aad u sareyso 6 qof walba u dhaxeeyo da ahaan 26 ilaa 65 jir waxaa qoray qoraalkanito ama mowduucan Diyaar Axmed Fartaag Diyaar Salaad Diyaar Shaawiye sidoo kale waxaa idin soo jeediyay diyaar muha official ama soo taqaanin magaciisa caadiga ah Maxamuud Aadan intaan muuqaalkan aan ku kulmi doono waxaan idin leenahay sidaas iyo nabad.